kadib 5 maalmood oo codadka dadka Kenyaanka ay dhiibteen la tirinay ayaa maalinta Sabtida saacadu markii ay 3 galabnimo ayaa gudoomiyaha guddiga madax banaan ee doorashooyinka xuduudaha dalkani Kenya Isaaq Xasan Axmed waxa uu ku dhawaaqay Uhuru Muigai Kenyatta uu yahay madaxweynaha afraad ee dalkani Kenya. Uhuru Kenyatta ayaa waxa uu helay codad dhan 6,173,433 cod oo ah kala bar codadka dadka Kenyaanka ay dhiibteen oo ahaa 12 milyan taasoo micnaheedu tahay inuu boqolkiiba helay 51 iyo in ka badan 25 codadka 47 degma ee dalka midaasoo micnaheedu tahay qofka ku guuleystay doorashada. Since Uhuru Kenyatta has received 6,173,433, he has received more than 50.07%. He has also received more than 25% in at least 32 counties. I therefore declare Uhuru Kenyatta the duly elected president of the Republic of Kenya. mucaaradkiisu waa ra'iisul wasaaraha dalka Raila Amolo Odinga ayaa isaga nambarkii labaad soo galay isagoo helay codad dhan 5,340,000 taasoo muujinayso in lagu guuleystay in ka badan 800,000 oo cod. balse Raila Odinga oo isaga musharaxa madaxweyne ee doorashadan ayaa shir jaraa'id uu saxaafadda u qabtay galabnimadan sheegay inuu ku gacan seeray natiijadan midaasoo uu ku sheegay in lagu shubtay sidoo kalena si cadaaladna inaysan u dhicin. Raila ayaa sheegay inuusan ku qanacsaneen qaabka doorashadan ay u dhacday balse uu maxkamad la tiigsani doono guddiga doorashada si uu cadaalad u helo. Now it is clear that the constitutionally sanctioned process of electing a new set of leaders to take us to the next level has been thwarted by another tainted election. Uhuru Kenyatta ayaa waxaa la guddoonsiiyey shahaadada caddaynta madaxtinimo taasoo uu guddoonsiiyey madaxa guddiga doorashada dalkani Kenya Mr. Isaaq Xasan Axmed. madaxweynaha afraad ee dalkani Kenya Uhuru Kenyatta ayaa waxaa la dhaarin doonaa 26 bishan 3 14 maalmood marka maxkamadda sare ee dalka ay dhageysato wixii dacwad ay la xiriireen muranka natiijada doorashada. kadib markii Uhuru Kenyatta la guddoonsiiyey shahaadada caddaynta inuu ku guuleystay doorashadan ayaa waxa uu khudbad mahadcelina u jeediyay dadka Kenyaanka soo doortay iyadoo ammaanka dadka iyo midka madaxweynaha isla markaas la muujiyay tanna waa qayb ka mid ah qadiisa mahadcelinta. I want to thank the people of the Republic of Kenya who have shown tremendous patience over the last few days as we awaited the outcome of this election. I will honor the will of Kenyans and ensure that my government protects their rights and acts without fear or favor in the interests of our nation. Uhuru Muigai Kenyatta oo dhalay madaxweynihii ugu horeeyay dalkani Kenya waxa uu noqon doonaa madaxweynihii afraad ee si dimuqraadiyad dalkan Kenya lagu soo doorto isagoo ku dhashay magaalada Nairobi 26 Oktoobar sanadii 1961. magaciisu waa Uhuru oo macnaheedu yahay xorriyad waxa loogu bixiyay maadaama uu dhashay iyadoo xorriyadda loo diyaar garoobayay. wuxuu waxbarashadiisa dhaxay ku soo dhameystay iskuulka St Mary's ee magaalada Nairobi. wuxuu Mr. Muigai Kenyatta ku biiray macadka Amherst College oo Mareykanku ku yeelo. wuxuu bartay siyaasadda iyo dhaqaalaha. wuxuu guursaday sanadii 1990 isagoo ay noloshiisa ku weheliyaan xaaskiisa Margaret iyo 3 carruur oo laba ka mid ah loogu magac daray aabihiis Jomo Kenyatta iyo hooyadiis Mama Ngina. 1979 ilaa 80 wuxuu ka shaqeeyay bangiga KCB ee dalkani Kenya. siyaasadana waxa uu ku soo biiray sanadii 1989. sanadkii 1997 markii ugu horeysay wuxuu u cararay kursiga xildhibaanka deegaanka Koonfurta Gatundu laakiin xilliga ma uuna helin. 1999 madaxweynihii dalkan ka talinayay Daniel Arap Moi ayaa u magacaabay madaxa laanta dalxiiska Kenya. 2001 wuxuu aqalka baarlamaanka ku galay xildhibaan madaxweyne Moi soo magacaabay. isla sanadaasi 2001 madaxweyne Moi waxa uu u magacaabay wasiirka dawladaha hoose. sanadkii 2002 doorashada guud wuxuu u tartamay madaxweynenimo laakiin wuu waayay waxaana kaga guuleystay madaxweynaha imika talada haya ee Emilio Mwai Kibaki.
sanadii 2005 dastuurkii qabyada ahaa ee dadka Kenyaanka diideen waa uu ka soo horjeestay isagoo gudoomiye u ahaa xisbigiisa KANU. wasiirka dawladaha hoose ayaa mar kale loo magacaabay sanadii 2008 dawladii madaxweyne Mwai Kibaki isagoo isla sanadkaasi loo magacaabay wasiirka dhaqaalaha iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka kadib markii la soo dhisay dawladda isbahaysiga ee ay hogaamiye ka ahayeen ra'iisul wasaaraha iminkan talada hay Raila Odinga iyo madaxweyne Mwai Kibaki. December 15 sanada 2010 waxaa lagu daray liiska dadka looga shakisan yahay inay ka dambeeyaan rabshadihii Kenya ka dhacay sanada 2007 doorashadaas oo lagu murmay. sanadan aan ku jirno ee 2013 bisheedan saddexaadna wuxuu ku guuleystay inuu noqdo madaxweynihii afraad ee dalkani Kenya.